بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waa maalin talaada ah oo taariikhduna tahay 18 bisha July sanadka 2017 miilaadiga kuna beegan 24 bisha Shawaal sanadka 1438 hijriyada waxaad ku soo dhawaataan warka saacadlaha ee telefishinka BSS TV oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya Mohamed Noor oo ah askari Soomaali oo Mareykan ah ayaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay weerar haweeney 40 jir ah oo lagu dilay gobolka Minneapolis wararka qaar ayaa sheegaya in ninkan uu baaritaan ku socdo kadib markii uu jir dilay haweeney uu si qasab ah ku geeyay isbitaal oo sheegay inay waalan tahay afar iyo toban ruux oo Falastiin ah ayaa ku dhaawacantay weerar xalay salaadii cishaha kadib dhexmaray dad ku tukanayay Masjidul Aqsa oo ku yaala magaalada Qudus iyo ciidamada Israa'iil dadka Falastiiniyiinta ee ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa isugu jira kuwa dhaawacooda uu halis yahay iyo kuwa dhaawacooda uu aad u fudud yahay wararka ayaa sheegaya in dadka ku dhaawacmay weerarkaasi uu ku jiray imaamka masjidkaasi ee lagu magacaabo Ikrima Sabri xaaladda ammaan ee magaalada Qudus ayaan ahayn mid xasiloon waxa ay soo taraya weerarada isdaba jooga ah ee ka dhacaya magaaladaas wararka qaar ee ka soo baxaya weerarka xalay ka dhacay magaalada Qudus ayaa sheegaya inuu salka ku hayo diididii Israa'iil ay diideen Falastiiniyiinta inay ku dugtaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa waxaa halkan inoogu eg warkii saacadlaha ahaa oo aad kala socoteen telefishinka BSS TV ciddii uu dhaafo waxay ka heli kartaa barta aan ku leenahay internetka oo ah www.bssomalia.tk